bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee Safana Production qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona saddexda xidig ee isugu soo haray abaalmarinta xidiga sanadka UEFA oo la shaaciyay iyo kaalmaha ay kala galeen 10 xidig ee ugu sareysa Paris Saint-Germain waxay jawaab ka bixisay labadii dalab ay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ka soo gudbiyeen xidiga Neymar xidiga Chelsea Abraham oo dil loogu hanjabay lana cunsuriyay kadib markii uu qasaariyay rigooradii ay koobka ku qaaday Liverpool maxaa sabab u ah in shaqaalaha amniga ay garoonka ka saaraan Cristiano Ronaldo kulankii saaxiibtinimo ee Juventus Zinedine Zidane oo taleefanka ka wacay mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan ee Liverpool si uu u keeno Real Madrid PSG oo war rasmi ah ka soo saartay xaaladda Neymar haddii laga mamnuucay tababarka kooxda iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda inta waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada ugu dorkoran barnaamijka ciyaaraha markaana u diyaar garooba isagii oo fidsan halka aad inaga daawanaysaana waa Safana Production saddexda xidig ee isugu soo haray abaalmarinta xidiga sanadka UEFA oo la shaaciyay iyo kaalimaha ay kala galeen 10 xidig ee ugu sareysay Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk ayaa u tartamaya abaalmarinta xidiga sanadka UEFA xidiga ku guuleysta abaalmarintan waxaa la shaacin doonaa marka la qabanayo isku aadka wareega guruubiyada Champions League ee 29 bisha lagu qabanayo Monaco ee dalkaasi Faransiiska saddexda xidig ee abaalmarintan isugu soo hartay ayaa kala ah Lionel Messi oo ka tirsan Barcelona kana soo jeeda Argentina waxa uu qaaday goolinta UEFA Champions League iyo European Golden waxa uu Barcelona kula guuleystay horyaalka La Ligaha Cristiano Ronaldo Juventus ka tirsan isla markaana ka soo jeeda Portugal waxa uu ku guuleystay UEFA Nations League waxa uu Juventus la qaaday koobkiisii ugu horeeyay ee horyaalka Serie A Virgil van Dijk oo ka tirsan Liverpool isla markaana u dhashay Netherlands waxa uu ahaa xidiga garoonka ee kulankii Champions League uu la qaaday Liverpool waxa uu xulkiisa Holland gaarsiiyay finaalka UEFA Nations League xidigaha kale u soo baxay 10 kaalmood ee ugu horeeyay waxa ay kala yihiin kaalinta afraad waxa soo galay Alisson Becker oo ka tirsan Liverpool una dhashay Brazil waxa uu helay 57 dhibcood Sadio Mane Liverpool isla markaana ka soo jeeda Senegal 51 dhibcood ayuu helay Mohamed Salah Liverpool Egypt 49 dhibcood Eden Hazard Chelsea Real Madrid Belgium 38 dhibcood Delight Ajax Juventus Netherlands 27 dhibcood Frankie de Jong Ajax Barcelona Netherlands waxa uu helay 27 dhibcood Raheem Sterling Manchester City waxa uu dhashay xidigan England waxa uu helay 12 dhibcood abaalmarintan waxa la siiyay xidiga ugu fiicnaa ciyaartoyda ka ciyaarta qaaradda Yurub iyadoo lagu qiimeynayo qaab ciyaareedkooda iyo xilli ciyaareedka ay la qaateen kooxahooda iyo qarankooda xidigaha kale u sharaxan abaalmarinada kale dhanka goolhayaha waxa u sharaxan ee sanadkan Alisson Becker Hogan Lloris iyo Ter Stegen daafaca sanadka waxa u sharaxan Alexander Arnold Delight iyo Virgil van Dijk qadka dhexe ee sanadkan Frankie de Jong Christian Eriksen iyo Jordan Henderson weeraryahanka sanadka Sadio Mane Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo xidigta sanadka Lozi Bronzi Ada Herberg iyo Henry xidiga sanadka European League Olivier Giroud Eden Hazard iyo Lukaku Paris Saint-Germain waxay jawaab ka bixisay labadii dalab ee kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay ka soo gudbiyeen xidiga Neymar heshiiskii uu Neymar dib ugu laabanayo horyaalka La Liga waxa soo wajahday caqabad kale kadib markii Paris Saint-Germain ay soo diiday dalabyadii ay labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ay ka soo gudbiyeen ciyaaryahanka xidiga reer Brazil ayaa si weyn u doonayay inuu ka tago caasimadda Faransiiska xagaagan waxa uu doonayay inuu dib ugu laabto Spain 2 sanadood kadib markii uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kaliya 2 kooxood ayaa ku soo haray tartanka loogu jiro saxiixa waxa ayna kooxahaasi kala yihiin Barcelona iyo Real Madrid kooxdiisii hore ee Barcelona ayaa laga soo diiday dalab dhan 92.4 milyan oo gani oo la socdo xidiga qadka dhexe ee Philippe Coutinho Real Madrid ayaa iyadu gudbisay dalab kaash iyo ciyaaryahanno isugu jira iyadoo James Rodriguez iyo Gareth Bale ay qayb ka ahaayeen dalabka sida ay sheegtay BBC laakiin PSG ayaa doonaysa lacag kaash waxayna xidigan ay dul dhigeen lacag dhan 206 milyan oo gani labada kooxood ayaana diyaar u ahayn inay bixiyaan lacagtaasi kaashka maadaama ay ku xadgudbayaan sharciga dhaqaale wanaaga ee kooxaha Yurub Barcelona waxa ay durba qorsheystay 200 milyan oo gani xagaagan oo ku jiro Antonio Griezmann Real Madrid iyagana lacag dib uma reeban oo waxay la soo wareegeen xidiga ay ka mid yihiin Eden Hazard Lukaku iyo Milito tababare Zinedine Zidane ayaa xaqiijiyay xiisaha Neymar ee kooxdiisa Real Madrid waxa uu yiri Neymar kama mid ah kooxdeena laakiin ilaa 2 September wax walba ayaa dhici kara PSG ayaa doonayso in lacagaha ugu badan ay ka hesho Neymar ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga 2 bisha September dhanka kale PSG ayaa war ka soo saartay xaaladda Neymar iyo haddii laga mamnuucay tababarka kooxda kubadda cagta ee PSG
agaasimaha kooxda Paris Saint-Germain Leonardo ayaa beeniyay wararka soo jeedinaya in weeraryahanka reer Brazil in laga mamnuucay inuu ka qayb noqdo kooxda koowaad ee PSG. Neymar ayaa ka tagay kooxda Barcelona kuna biiray PSG sanadii 2017 isagoona ku baxay lacag rikoor adduun ah oo gaaraysa 222 milyan oo euro, laakiin waxa uu doonayaa inuu ku laabto Barcelona koorinta uusan suuqa kala iibsiga Yurub xirmin 2 bisha September. baahida uu qabo inuu ka tago kooxda xagaagan ayaa ka careysiisay taageerayaasha Paris Saint-Germain, waxaana caradooda ay ku soo bandhigeen kulankoodii ugu horeeyay ee horyaalka Faransiiska ay ka badiyeen kooxda Nimes. waxay kulankaasi ku soo bandhigeen boorar ay ku aflagaadinayaan xiddiga reer Brazil, halka ay sidoo kale ku heesayeen erayo aflagaada ah oo ka dhan ciyaaryahan Neymar waa uu ka maqnaa kulankaas kama uusan muuqan tababarka kooxda, taas oo keentay in la soo jeediyo in laga mamnuucay kooxda koowaad. laakiin Leonardo oo agaasimaha kooxda ayaa sheegay in ay been tahay in laga mamnuucay tababarka kooxda koowaad. waxa uu sheegay in uu weli qayb ka yahay qorshaha tababare ee kooxda PSG. waa been abuur lagama saarin kooxda, ayuu Leonardo u sheegay mid ka mid ah saxaafadda dalkaasi Faransiiska. waxa uu sameynayaa tababar u gooni ah uu dhaawac kaga soo bogsanayo. waa ciyaaryahan Paris Saint-Germain ah 3 sanadood ayaa ugu hartay qandaraaskiisa Paris. waa qasab inaysan iloobin taas. waa qasab inaan wax walba qiimeeno, waa inaan wax walba xalin karno koorinta uusan ciyaarin mar kale. wax walba waa ay fudud yihiin. Neymarna waxa qiimeynaya dhaqaatiir waaweyn, waxaana qalliin ku sameeyay dhaqaatiir waaweyn. dhaawiciisa cagta gabi ahaanba waa uu reestay. xildiga Chelsea Abraham ayaa dil loogu hanjabay lana cunsuriyeeyay kadib markii uu qasaariyay rigooradii ay koobka ku qaaday kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Tammy Abraham ayaa la cunsuriyeeyay isla markaana dil loogu hanjabay kadib markii uu xalay qasaariyay rigooro kulankii Liverpool. weeraryahanka Ingiriiska ee 22 jirka ah ayaa ahaa xiddigii ugu dambeeyay ee Chelsea u tuura rigoorada, laakiin waxaa ka badbaadiyay goolhaya Anderyan, taas oo keentay in Liverpool ay ku guuleysato koobka UEFA Super Cup. laakiin markii ay Chelsea seegtay koobkeedii ugu horeeyay ee xil ciyaareedkan isla markaana Lampard ay soo wajahday guuldaradii labaad oo isxigta, Abraham ayaa lagu bartilmaamaysaday baraha bulshada. hay'adda la dagaalanta cunsuriyadda kubadda cagta ayaa warbixin ku daabacday Twitter-ka waxayna xaqiijiyeen in fariimo madabtikoor ah loo diray weeraryahanka Ingiriiska. waxay qoreen xalay waan helnay warbixino sheegaya in fariimo madabtikoor ah loo diray Abraham kadib kulankii Chelsea ee UEFA Super Cup. midabtikoorka waxa uu haatan noqonayaa mid sii kordhaya, laakiin waa wax lala yaabo. tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa lagu waramayaa inuu taleefanka ka wacay weeraryahanka reer Senegal ee Sadio Mane hornaantii xagaagan isagoona kala hadlay suurtagalnimada uu uga soo tagi karo Liverpool uguna soo wareegi karo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. warbaahinta Scoreling ayaa sheegaysa in kadib markii ay taleefanka ku wada sheekaysteen Sadio Mane laga dhaadhiciyay inuu soo wareego kooxda kubadda cagta ee Los Blancos. si kastaba madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa ka soo horjeesaday tababare Zinedine Zidane saxiixa Mane oo uu sheegay in loo baahan yahay xiddig kale oo garabka ka ciyaara kadib markii ay la soo wareegeen xagaagan Rodrigo iyo Eden Hazard. Liverpool ayaa iyadana dhankeeda diyaar u ahayn inay iibiso weeraryahankii Southampton ilaa in loo soo bandhigayo dalab aad u qaali ah. Sadio Mane oo nasiino badan aan helin xagaagan kadib markii uu ka qayb galay tartanka qaramada Afrika uu matalay xulkiisa Senegal ayaa si cajiib ah ku bilowday xil ciyaareedkan. waxa uu ka caawiyay kooxda Liverpool hanashada koobka UEFA Super Cup kadib markii uu dhaliyay 2 gool kulankii Riddiska rigooro ay kaga qaaday koobka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. maadaama uu soo xirmay suuqa kala iibsiga Ingiriiska, Liverpool diyaar uma ahan inay iibiso xiddigeeda muhiimka ah maadaama aysan heli karin beddelkeeda ilaa iyo bisha Janaayo. laakiin hal ciyaaryahan ayaa la filayaa inuu baxo inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ee wadamada kale ee Yurub, waana daafaca reer Kroaad ee Lovren, kaas oo lala xiriirinayo inuu ku biiro kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Roma. halka aad kala socotaan barnaamijka ciyaaraha daawadayaal waa Safana Production. markaana wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. dabcan suuqa kala iibsiga ee Premier League ayaa si rasmi ah u xirmay 8 bisha Agoosto, balse waxaa weli furan suuqyada horyaalada kale ee Yurub oo 2 bisha September xirmi doona. aynu ka hormarnay AS Monaco ayaa ku guuleysatay inay dib ugu soo celiso Faransa weeraryahanka Wes Ben Yedder oo 37 milyan ay kala soo wareegtay kooxda Sevilla. Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa in dhigeeda Real Madrid ay ka codsatay saxiixa Vinicius Junior hadiiba ay ka doonayaan Neymar. Manchester United ayaa qalbi jabkii ugu weynaa ku riday Real Madrid, waxayna sheegtay in gudaha xagaagan aysan xitaa aqbali doonin dalab 200 milyan oo euro oo ay Pogba kaga doonayaan. Bayern Munich ayaa doonayso in Philippe Coutinho ay ugu gargaarto dhibaatada Barcelona ku haysato
iyadoo qaab amaah ay ku doonayso haddii aan lagu darin heshiiska uu Neymar ugu soo wareegayo kooxda kubadda cagta ee Barcelona. kooxda Roma ayaa meesha ka saartay iib kasta oo ay ku fasaxday Edin Dzeko, waxaa kaliya ay fasaxayaan weeraryahankeeda haddii loo ogol yahay in Inter Milan ay ka hesho Mauro Icardi. Napoli ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa garabka kooxda PSV Lozano, kaasi oo heshiiskiisa si rasmi ah u dhameystiri kara Jimcaha. dhinaca kale Napoli ayaa doonaysa inay iska fasaxdo weeraryahankeeda Milik, kaas oo aan si buuxda ugu qancin tababare Carlo Ancelotti walow oo 17 gool dhaliyay xil ciyaareedkii hore. Galatasaray ayaa wada hadalla ay kula wareegayso João Mario la furtay kooxda Inter Milan, iyadoo la filayo in xiddiga reer Portugal uu gudaha xagaagan ka hayaamo kooxdiisa. Galatasaray ayaa sidoo kale doonaysa in xil ciyaareed amaaha ay kula soo wareegto Steven Inzonzi oo qayb ka Roma, waxayna bilowday wadaxaajoodkii sida ay ku xaqiijiyeen barahooda bulshada. Lyon, Mallorca iyo PSG ayaa sii wada tartanka ay ugu jiraan saxiixa qadka dhexe ee Palacio Matuidi, kaas oo sidoo kale lala xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Real Madrid ayaa isku diyaarinaysa in qaab amaaha ay ku dirto weeraryahankeeda Lukavic kadib kaliya bilooyin uu kooxdeeda ka tirsanaa. Mario Balotelli oo hore loola xiriirinayay horyaalka Brazil ayaa haatan lagu soo waramaya inuu qarka u saaran yahay wareegista koox ku cusub Serie A. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ciyaaraha aad kala socoteen Savannah Production. soo saarista iyo tabinta barnaamijku waxa uu ahaa anigoo ah Maxamed Cumar Yuusuf Maxamed Bolton. barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo, balse waxay naga xasuusin haddii aad doonayso wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, fadlan si aad inooga mid noqoto channelka Savannah Production, subscribe deh, like-tana ka iloobin, wixii fikir ahna commentiga inoogu soo qor. waad mahadsan.